waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lexjeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaa macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad siday ahaan jirtay waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad walaala dad aan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasna weeye waxa la yiraahdaa metropolitan caasimad ummad dan ay wada degan tahay sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadda noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka kun ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladan mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xallisanno si dawladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay allah u naxariisto intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karin waxaanu go'aansannay inaan xalka ku raadinno wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horay u sheegay xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel la iska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanin shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo dawladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado boroseska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas laisugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn
mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan